السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan idil ahaantiinba. Waxaa jira website fara badan oo aad ka baran karto ama aad ku samayn karto design aad iyo aad u qurux badan. Haddii aad jeceshahay inaad graphic designer noqoto ama aad samayso naqshado aad iyo aad u qurux badan oo tayo leh, badanka waxaad u adeegsan kartaa inaad ku samayso software-rada ama application-nada loogu talagalay graphic design-ka sida Photoshop-ka, Illustrator-ka, noocyadaas haddii aad computer-ka adeegsanayso. haddii aad mobile-ka adeegsanaysana waxaa jira application fara badan oo kaa caawinaya inaad samayso design aad iyo aad u tayo wanaagsan. sidoo kale waxaa jira website fara badan oo iyagana sidoo kale aad si online ahaan ugu samayn karto naqshado aad iyo aad u wanaagsan, tayadooduna aad iyo aad u roon tahay ama u wanaagsan tahay. hore waxaan ka warramay website-yo lagu sameeyo design-nada noocyadooda kala duwan. muuqaalkan waxaan kugu soo bandhigayaa website aad iyo aad cajiiba ood ku samayn karto design design-ka jeceshahay ama naqshada aad jeceshahay ee markaasi aad rabto inaad samayso. browser-kaaga computer-ka ayaad soo geli doontaa. website-kani mobile-kana waad ku isticmaali kartaa, computer-kana waad ku isticmaali kartaa, balse laakiin waxa uu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay ood u adeegsan kartaa computer-ka. website-kan waxaa la yidhaahdaa PicMaker baad xagga sare ku qori doontaa. waxaa markaasi uu ku soo saari doonaa website-ka ayuu ku soo bandhigi doonaa qaabka uu yahay. qaabkan uu kugu soo baxaya marka ugu horeysaba. marka haddii aad rabto in aad account ka samaysato waad sign up garan doontaa. haddii aad mid hore markaasi ku lahaydna ama aad isticmaali jirtayna login baad odhan doontaa. xaggan haddii dul dhigo waxa productyadan uu soo saaraya aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. certificate maker, blog banner maker, Instagram, Facebook, YouTube, email, nooc kasta oo jeceshahay, presentation maker, aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. halkan templates baa ku jira. haddii aad hoos wado qaabkan ayuu kugu soo baxay naqshado aad iyo aad u tayo wanaagsan ayaad ku arkaysaa xaggan hoose. halkan ayaan ku dhufanayaa start designing for free ayaan ku dhufanayaa. kadib markaa waxaa ii soo saari doonaa dashboard-ka ama qaybta markaasi aan ku sameynayo naqshadaha aadka aad ku qurux badan. sidoo kale aan ka dooran karo templates aad iyo aad u qurux badan. halkan ciwaankayga ayuu iga soo saaray ama aan ku login gareeyey. qaybtan hoosena waxa uu kaaga soo saarayaa naqshado aad iyo aad u wanaagsan oo qurux badan muuqaal ahaan iyo tayo ahaanba. nooca aad rabto ayaad halkan ka dooran kartaa. haddii aad Instagram doonayso, haddii aad YouTube doonayso, haddii aad Facebook doonayso, haddii aad noocyada xayeysiisyada rabto, flyerska, posterska, bannerada, waxyaabahaas oo idil waad ka helaysaa kuwa markaasi aad iyo aad u tayo wanaagsan oo qurux badan. tusaale ahaan iminka mid ka mid ayaan eegi doonaa, bal tan ayaan ku dhufanayaa. waxa uu ii gudbinayaa qaybta markaasi editing-ka ama lagu sameynayo naqshadaha ama aan ku bedbedelayno. dhammaantood waa editable, waa templates markaa diyaarsan oo aad wax ka bedeli karto ama marka aad wax ku dari karto, sawir aad gashan karto, qoraal aad gashan karto, waxyaabo fara badan markaa kuu sahlaya kuna saacidaya. sidoo kale website-kan waxa uu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay dhinaca resolution-ka ama tayada waxa aad sameynayso. marka aad download garaysato kaa nusqaami maayo ama shucaac waxa yeelan maayo, si aad iyo aad u qurux badan ayuu kugu muuqanaya. waxaan eegi doonaa markaasi midkan. halkan haddii aan ku dhufto waa qaybta soo dhaweynta ama zoom weeyaan. haddii aad soo dhaweysanayso dhammaantood waa editable oo arkaya waa markaasi aad bedeli kartaa. tusaale ahaan waan bedeli karnaa, waan bedeli doonaa. halkan dhinacan waxa uu kaaga soo saarayaa features aad u fiican. dhinac waxaa ku jira templateyo. haddii aad rabto naqshadan aad dooratay ama tan meesha kusoo taala qaybtan hore dashboard-ka, haddii aad iska bedesho qaybtan waxa uu kaaga soo saarayaa design ama templates aad iyo aad markaasi u qurux badan, nooca aad jeceshahayna aad ka dooran karto markaasi aad edit gareyn karto. halkan naqshadahaas ayaa ku jira, waa qaybtii templateska weeye. aad iyo aad bay tayadoodu wanaagsan tahay, aad iyo aad bayna u qurux badan yihiin. nooca aad jeceshahayna waad ka dooran kartaa. dhammaantood waa free oo ku jiraan. qaar purchase u baahan ama lacag kaaga baahan inaad garayso, laakiin badankoodu waa kuwo free oo lacag la-aana ayaa markaasi ay u badan yihiin. waana wax aad iyo aad u qurux badan oo aad ku qancayso. qaybtan iyadana sidoo kale waxaa ku jira photos, sawirro markaa iyaguna footage ama free footage ah oo aad u adeegsan karto design-nada aad sameynayso. qaybtan waxaa ku jira objects oo marka aad ka heli karto iconadii, shaybiskii, waxyaabahaas oo idil aad ka heli karto. dhammaantood
halkan ayaad searching garan kartaa waxa aad rabto aad ku qoraysaa qaybta searchingka kadibna waa ku soo saaraya isla markaaba. Qaybtani waa qaybtii textiga oo haddii aad rabto inaad wax ku dul qorto mid ayaa dooranaysaa kuwan noocyada halkan kaga muuqda kadibna waa ku soo saaraya. Qaybtan hoose waa backgroundadii oo background aad iyo aad u qurux badan ayaad ka heli kartaa. Qaybtan ku sii xigtana waa upload oo adiga waxa computerkaaga kugu jira ayaad ku soo upload garan kartaa loogooyinka, sawirrada, waxyaabaha soo idil ayaad ku soo upload garan kartaa. Okay, bal mataan eegna markaasi tusaalahan haddii aan midkan ku dhufto sawirka hoose aad buu iskaga fiican yahay. Waxaan ku qori waxa aad jeceshahay iskaga qoran kartaa. Xafladda ayaan ku qori karaa, xafladda sanad guurada ayaan ku qorayaa, sanad guurada ayaan ku qorayaa. Okay, marka uu qaabkan kugu soo baxo dhinacan ayaad u jiidi kartaa, dhinacan ayaad u jiidi kadibna qaabkaas ayuu kugu soo baxayaa. Sidoo kale qoraalkan waan bedeli karaa, sanad guurada waxa aad jeceshahay iskaga qoran kartaa. barkhad touch baan ku qori karaa, barkhad touch. Okay, kadibna dhinacan ayaan jiidaya si qoraalku markaasi uu u noqdo hal line oo keliya. sidoo kale waan yareyn karaa, halkan ayaan soo dhigi karaa. qoraalada dhan waad bedeli kartaa, dhammaan waad bedeli kartaa, waxbaad ku soo dari kartaa, waxbaad markaasi replace gareyn kartaa dhammaantood. Okay, qaabkaas ayuu kugu soo saaraya. Tusaale kan haddaan ku dhulufto qaybtan waxaad ka helaysaa fontiski. haddii aan halkaa ku dhulufto fontiska ayuu iga soo saaraya oo dhinacan ka soo baxaya dhammaantood. marka fontis aad iyo aad u tiro badan dhammaantood waa free weeyaan. khad aad iyo aad u wanaagsan ama internet fiican ayaad u raadsanaysaa si markaasi si dhaqsi leh uu kugu sameeyo ama aad markaasi kugu fududaado waxa aad sameynayso. Okay, sidoo kale qaybtan cabirkeed ka bedeli kartaa. halkan sidoo kale waxaan ka bedeli karaa colorka ama midabka ayaan ka bedeli karaa oo nooca aan rabo ayaan markaasi u bedeli karaa. sidoo kale qaybtan effects ayuu leeyahay. shadow baan u sameyn karaa, waan ka yareyn karaa ama ka bedeli karaa. qaabkaas ayuu markaasi kugu soo baxaya. sidoo kale kuwan waad ka bedeli kartaa midabada, waxyaabaha soo idil. haddii aad masaasoo kale ama waxaad dhaqaajiso ama aad wax ka yar qaldamaan just waxaad taabanaysaa control plus z. waa sidii photoshopka ama illustratorka ama softwarada aad u isticmaali kartay oo kale on waxa markaasi aad iyo aad u sii adag maaha. Okay, qaabkan marka aad u sameyso ama waxaad jeceshahay aad ku soo darto backgroundka haddii aan marka kali gareeyo kadibna aan halka ku dhufto made all waxa uu bedelayaa markaasi qaybta hoose si markaa automatically ayuu kugu bedelaya backgroundada available ama ku jira meesha ayuu qaar kugu bedelaya. kuwa kalena adigu markaasi waa iskaga soo darsan kartaa oo tusaale ahaan imika haddii aan kaa doorto waxa aan ku bedeli karaa qaybta hoose ayuu markaasi mari karaa ama markaa waan ku habeyn karaa. Okay, qaabkaas ayaad ugu sameynaysaa website aad iyo aad u tayo wanaagsan, aad iyo aad markaasi loogu bogay. tusaale ahaan imika qaybtan objectska haddii aan ku dhufto kadibna halkan ku qoro social media icons aan ku qoro social media kaliya haddii aan ku qoro marka waxa uu soo saari doonaa iconadii social mediaha ayuu dhammaantood halkan iga soo saari karaa. Facebook iyo Instagram noocyadooda kala duwan ayuu qaybtan iga soo saaraya markaasi kadibna aan u adeegsan karaa waxa aan rabo oo markaasi aan dul geyn karaa wixii aan sameynayo poster, banner, wuxuu doonaba ha ahaado. sidoo kale waxa aad sameyn kartaa qaybtan uploadingka haddii aad ku dhufato kadibna upload aad ku sii dhufato waxa markaasi uu ku geenayaa qaybta computerkaaga oo soo gelin karto wax alla wixii aad jeceshahay. aad soo gelin kartaa. tusaale haddii magasa ugu dhufto ama mid kaleba haddii aan halkan ka doorto kanba haddii aan saa ugu dhufto kadibna aan open idhaahdo halkan ayuu igu soo upload garanayaa. waxa aanu kugu shaqeynayaa waa internetka si online ahaana ayaad markaasi ugu sameyn kartaa designada iyo waxyaabaha markaasi aad jeceshahay ayaad halkan ugu sameyn kartaa. Okay, waa kan uu soo geliyay kadibna waxa aan ku soo daray halkan hal mar ayaan click siinayaa
dhankan ayuu markaasi iga soo baxaya waan yareyn karaa sidoo kale meesha aan rabo ayaan markaasi geyn karaa. Okay, haddii aad rabto in aad markaa kor usoo qaado ama tusaale ahaan intaan click siiyo ama dhankan keeno, halkan waxa uu kaaga soo saarayaa in kor ama hoos ama dhankaa jecesha markaa aad marin karto. Tusaale click baan halkan siinayaa, haddii aan back idhaahdo xagga ugu hooseysa ayuu tagayaa. Sidoo kale haddii aan front idhaahdo xagga ugu hooseysa, haddii aan back one idhaahdo kuwayagoon kale ayuu ka hoos maraya markaasi. Okay, sidoo kale kuwani waxa weyn waa alignment-igi ama haddii aad xagga sare geynayso, haddii markaasi dhexdaad geynayso, waxyaabahaas oo dhan ayuu markaasi kuu soo saaraya. Okay, waxaa markaasi tan waa iska saari karaa, waad double gareyn kartaa. Sidoo kale replace ayaad ku samayn kartaa oo markaa mid kale ayaad dooran kartaa. Imika taa haddii aan ku dhufto wuu replace gareynaya, tii ayuu markaasi igu bedelaya. Oodiga arkaya qaabka uu u bedelay. Sidoo kale waad xidhan kartaa, waad markaasi furi kartaa. sidoo kale waad crop gareyn kartaa, background baad ka dhigi kartaa, duplicate baad ku samayn kartaa oo imika 2 mid ayuu noqon karaa hadii aan duplicate yiraahdo. qaabkaas ayaad markaasi u bedbedeli kartaa. tusaale okay, haddaba imika haddii aan u baahdo in markaasi aan save gareysto ama download gareysto design-kii wixii aan sameeyey, qaybtan halkan download ay iga muuqato ayaan markaasi ku dhufanaya. Okay, haddii aad qaybtan file-ka timaado waxa uu kaaga soo saarayaa halkan download ay ku qoran tahay, aad ku dhufanaysaa, kadibna halkan ayuu markaa kaaga soo saarayaa qaybtii downloadinka. Okay, download ban kadibna odhanaya magac ban markaasi u sameynaya. sidoo kale imika tusaale ahaan poster ayaan ku qori, halkan ayaan poster markaasi ku qori doona. kadibna halkan waxaad ka dooran kartaa file-ka nooca uu yahay, jpg oo sawira ama png bila background ama pdf nooca jeceshahay. jpg waan ka dhigayaa, tayaduna waa 100%. Okay, download baan siinaya markaasi si aan u download gareysto design-kii aan sameeyey. wii barbaar garanaya markaasi hadda waa uu download gareeyay si automatically ayuu dhanka iga soo baxay posterkii wixii aan sameeyey. haddii imika aan open idhaahdo, tusaale haddii imika aan open idhaa, waxa sawirkii ayuu markaasi computerkayga igu shubay oo dhankan ayuu markaa kaaga soo baxaya. Okay, wax aad iyo aad u qurux badan weeye. nooca alla nooca jecesha ayaad markaasi ku samayn kartaa. imika tusaale haddii aan qaybtan template ku dhufto, nooc kale ayaan markaasi ku bedeli karaa. bal mid kale ayaan markaasi tijaabinaynaa si aan u bedelna tan kan meeshan u yaala. Okay, haddii aan kaa ku dhufto xogabad markaa yar sugi doontaa inta uu ku replace gareynayo ama kii hore markaasi uu ku bedelayo. Sorry, kani waxa weeyaan waa qayb markaasi lacaga. Okay, qaybtan midkan waan ka noqonayaa. kuwa free-ga ah waad ka dhex deedeyn kartaa, waad ka dhex raadsan kartaa. kuwa free-ga ah waa kuwa calaamada yar ee xidigto ayna saarnayn weeye. Okay, kanaan ku dhufanayaa. Okay, design-kii meesha ii yaalay kan aan hadda doortay ayuu markaasi iigu bedelay. isna sidoo kale waan markaasi edit gareyn karaa oo qoraalka waan ka bedeli karaa. sidoo kale sawirka halkan ayaan ku dhufanaya, replace ayaan siinayaa. kadibna haddii aad qaar soo upload gareyso halkan ayuu kaaga soo saarayaa. sidoo kale photos haddii aan ku dhufto, kuwa halkan ku jira ayaan markaasi mid ka mid ah ku soo upload gareynaya. Okay, halkan waxaan ku qori karaa man wasaan u raadiya markaasi sawirka meesha aan rabo inaan ku bedelo ayuu markaasi qaybtan ka saaray. Okay, kan haddii aan ku dhufto qaabkaas iga saaray, kadibna apply aan leeyahay. Okay, si dhaqsiya ayuu markaasi igu bedelay. si alla sida jeceshahay markaasi ugu bedeli kartaa. website aad iyo aad u tayo wanaagsan oo runtii ka mid ah website-yada aan ugu jecelahay ee forex-kaga ah. inta badan aan ku sameeyo design-nada aad iyo aad u quruxda badan. waad ka faa'iideysan kartaa, waqti kastana waad ku samayn kartaa design aad iyo aad markaasi u tayo wanaagsan. imika qaybtan haddii aan kusoo noqdo dashboard-ka, kadibna aan mid kale soo doorto, tusaale ahaan imika mid kale ayaan soo dooranayaa. qaybtan marka aad timaado waxa uu kaaga soo saaray qaybtan dashboard-ka waxa weeyaan wixii markaasi trending ah ee qaybtan ku jira ayuu kaaga soo saaray. mid kasta magac ay leeyahay, Facebook post aad rabto, Facebook ad aad rabto, Twitter ad aad rabto, noocyadaas. qaybtana waxa uu kaaga soo saari karaa design-nada ama waxyaabihii adigu aad samaysay marka qaybtan kugu kaydsan ayuu kuu soo saaraya. marka aad u samaysato ciwaan ama account aad ka samaysato, waxa uu ku saamaxaya ama ku sahlaya waxyaabaha aad samayso in ama naqshadaysa inaysan kaa bixin oo markasta ood account-kaaga gasho aad heli karto, dibna markaasi aad u edit gareyn karto ama markaasi aad u bedbedeli karto. Okay, qaybtan templates-ka haddii aan ku dhufto,
waxa uu soo saaraya dhammaan templateska ku jira website-ka. sidoo kale waxaad ku samayn kartaa logooyinka. imika tusaale haddii aan loogo ku dhufto waxa uu soo saarayaa dhammaan logooyin editable ah oo ku jira qaybtan oo aan bedbedeli karo ama aad nooca aad jecesha markaasi aad ku bedelan kartaa ama aad u samaysan karto. okay, qaybtana dib ugu laabanayna markaas halkan ayaan iman. templateska aad iyo aad bay tiro badan yihiin, maaha wax markaasi la soo koobi karo ama aad markaa ka gayoon karto. waa inta aad doonto ayaad dhex mushaaxaysaa nooca alla nooca aad jeceshahay aad markaasi ka dhex dooranaysaa ood edit karinaysaa, kadibna markaasi sida aad jeceshahay aad u samaynaysaa. markaa website tayadiisa la hubo aad iyo aad u wanaagsan 100% markaasi aad ku doorgaraysan karto quality aad u wanaagsan oo aan isbedelin markaasi midabkiisa, shucaaciisa, waxyaabaha aad samaysay oo dhan ayna wax yar oo shucaaci kaa galahayn ayuu markaasi kugu samaynaya. website aad iyo aad u tayo wanaagsan. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideysan doonto markaasi dhisayna aad iyo aad u qurux badanna aad ku samayn doonto. sidoo kale website kale oo aad iyo tiro badan way jiraan oo lagu sameeyo muuqaalada, lagu sameeyo graphic design ama designada aad iyo aad ku qurux badan. iyagana sidoo kale waa aan soo gelin doonaa muuqaal ayaan kasoo samayn doonaa. tan iyo muuqaalka dambe intaas ugu iman doono waxaan kaaga tegayaa nabadgelyo.